halganka la isaga xoreynayo kooxda al-shabaab waxa uu galaaftay nabadoon cilmi hagar guure oo ahaa hormuudkii ugu cuslaa ee curiyay kacdoonka shacabka ee la isaga dulqaadayo al-shabaab. dagaal socday muddo bil ka badan oo uu hogaaminayay nabadoonka maanta shahiiday ayaa al-shabaab looga qabsaday deegaano badan iyadoo ay qabiilo badan hubka qaateen oo ay bilaabeen inay al-shabaab ka saaraan deegaanadooda. allaha u naxariistee nabadoon cilmi hadal uu jeediyey inta uusan bilaaban kacdoonka lagu diidan yahay al-shabaab ayaa noqday mid taariikhda gala oo kiciyay dareenka malaayiin Soomaali ah kaasi oo ahaa inuu naftiisa u hurayo dadkiisa taasi oo ugu dambeyn dhacday. waxaan u malaynayaa nin iga weyno meeshaan ma joogo odayga cali madaxweynaana aakiigu baabuurkaas uu saaraya ayadoon hiiraan la xoreyn ama waa ku dhiman ama intaan oo mataqaanaa oo joogaan bannaanka saasaan u joogaya sariir saaxa maayo kolley waa la dhiman lahaa gobonnimada lagu dhinto darag gunnimo leh waxaa ka wanaagsan gaajo gobonnimo leh ee aan taas isla qaadanno. ilaahay baa nagu xukumay dhimasho nagu xukumay saacad iyo wakhtiyaana leennahay soo hormari karaa ma jiro aan isla qaadanno jidkii dhiman lahaaya dhimana mustaqbalka ilaahay aan ka fikirno aan cadowgaas ka duuqaadno war misla qaadanay allah idinku og waa qaadanay dhinaca kalena dagaalka maanta ka dhacay deegaanka ceel qodaxle ee hoostaga magaalada Moqokori waxaa la xaqiijiyay in lagu laayay xubno badan oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo deegaano badan laga qabsaday. sidoo kale waxaa sii kordhaya oo deegaano badan ka bilowday kacdoonka shacabka ee isaga difaacayaan kooxda al-shabaab kuwaas oo hadda wajahaya isdifaac shacab oo xoog leh. sidoo kale dadka ka tacsiyeeyay geerida nabadoonka waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo sheegay in nabadoon cilmi uu ka dhabeeyay halgankiisii iyo oraahdiisii ahayd inuu dalkiisa ka xoreynayo argagixisada ama uu shahiidayo isaga oo dagaal kula jira ururka al-shabaab ayna muujinayso in waxgaradka iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay maanta ka go'an tahay xoreynta dalka. nabadoon cilmi hagar waxa uu lahaa laba himilo oo aad u weyn, labadiisii himilo waa ku guuleystay inuu deegaankiisa ka xoreeyo ururka al-shabaab iyo inuu u shahiido isagoo dalkiisa ka difaacaya argagixisada. waxa uu tusaale u yahay sida uu halgankan uu uga dhab yahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda qaybo kamid ah Soomaaliya.